Asalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada warbixin aan kugu soo gudbi doono wadamada ay ka jiraan sharciyada la yaabka leh. soo dhawow inta aynan u guda galin mowduuca aynu ka hadlayno fadlan subscribe sar channelkeena dunida maanta wad mahadsantahay. Lambarka koowaad waxaa soo galaya dalka Bangladesh. Ardayga 15 sano ka weyn ee imtixaanka qisha dalka Bangladesh waa la xirayaa. Lambarka labaad cabitaanka Pepsi-gu waa ka mamnuuc 18 sano wixii ka yar dalka Norway. Lambarka saddexaad 15 sano waa da'du uu sharcigu ogol yahay in sigaarku uu ku bilaabi karo dalka Mexico. Lambarka afraad iibsashada gaariga Mareykanka ahi waa ka mamnuuc waana lagu xidhayaa dalka Waqooyiga Kuuriya. Lambar 5 ka baxsashada jeelku waa dambi aan lagu ciqaabayn dalalka Germany iyo Denmark. Lambarka 6 oohinta waa ka mamnuuc goobaha dadweynuhu isugu yimaadaan dalka Colombia. Lambarka 7 waa in aad ogolaansho ka haysataa wasaaradda arrimaha gudaha haddii aad doonayso in aad timahaaga nidaamiso dalka Kuuriyada Waqooyi. Lambarka 8 miisaankaaga oo kordha waa dambi lagu ciqaabi karo dalka Japan. Lambarka 9 waa lagu xirayaa haddii aad u dhoola cadeyso gabar aan garanayn dalka Venezuela. Lambarka 10 isticmaalka internetku waa mamnuuc haddii aanad ogolaansho ka haysan dhammaan wasaaradaha dalka Kuuriyada Waqooyi. Lambarka 11 daawashada TV-gu waa mamnuuc wixii ka dambeeya 12 habeenimo ama 6 saac oo habeenimo dalka Cameroon. Lambarka 12 waa mamnuuc in aad inankaaga ama wiilkaaga u bixiso Maxamed Axmed Cabdullaahi dalka Bama. Lambarka 13 qasabku ma aha in aad lacagta bixiso haddii aanad dhergin waa iska bixi kartaa adiga oo aanan lacag bixin hoteelada dalka Denmark. Lambarka 14 cabitaanku nuucu doonaba ha ahaadee waa mamnuuc inta aad gaariga wadato xataa haddii uu biyo yahay dalka Greega. Lambarka 15 xaaskaaga awood bay u leedahay in ay magacaaga bedesho mana diidi kartid dalka Holland. Lambarka 16 gabadhu awood bay u leedahay inay maxkamadda ka dalbato inay ogaato meesha uu ninkeeda joogo xilli walba oo ay lugta kaga xidho aaladda casriga ah ee GPS dalka South Africa. Haddaba daawade adigu xeerkee baad la cajiibtay ama aad ku soo jiitay? waad ku mahadsantahay daawashada iyo dhageysiga mowduucan fadlan saaxiibada la sii wadaag.